ma rumaysan lahayd in nin u muuqda mid daciif ah, xishood badan, oo dhalinyaro ah uu aqalkiisa yar gudihiisa ku qariyey mid ka mid ah sirihii ugu naxdinta badnaa ee taariikhda bini'aadamka, isagoo gurigiisa u beddelay xabaalo dadka lagu qalo, hilibkoodana lagu cuno, iyadoo boolisku ay dhowr jeer albaabkiisa yimaadeen balse ay dareemi waayeen uumiga dhimashada ee gudaha ka soo baxayay. Maxay ahayd sababta uu ninkan u go'aansaday inuu dadka u beddelo sidii caruusado uusan marnaba ka tagayn? Jeffrey Dahmer wuxuu ku dhashay gobolka Wisconsin ee dalka Maraykanka sannadkii 1960. Carruurnimadiisu waxay u muuqatay mid caadi ah bilowgii, balse markii uu koray, wuxuu bilaabay inuu muujiyo dabeecado yaab leh. Aabbihiis wuxuu ahaa nin ku takhasusay cilmiga kiimikada, wuxuuna Jeffrey baray sida loo isticmaalo dareerayaasha kiimikada ah si loogu nadiifiyo lafaha xoolaha dhintay. Jeffrey wuxuu bilaabay inuu kaymaha ka soo ururiyo maydadka xayawaanka sida bisadaha iyo eyda, isagoo ku dhex ridi jiray biyo kulul si uu hilibka uga fujiyo oo uu u haysto qalfoofka oo kaliya. Tani waxay u ahayd hiwaayad uu aad u jecel yahay, balse ma jirin qof dareensanaa in xiisaha uu u qabo lafaha xayawaanka ay dhowaan u beddelmi doonto mid uu u qabo hilibka bini'aadamka. Markii ay waalidkiis isfureen, Jeffrey wuxuu noqday mid aad u godoonsan, cabsida ah in laga tago ayaana ku dhalisay rabitaan ah inuu dadka agtiisa ku haysto xataa haddii ay dhintaan. Sannadkii 1978, Jeffrey wuxuu geystay dilkiisii ugu horreeyey isagoo jira 18 sano oo kaliya. Wuxuu waddada ka soo qaaday wiil dhalinyaro ah oo la odhan jiray Stephen Hicks, isagoo u ballan qaaday inuu cabitaan ku siinayo aqalkiisa. Markii uu Stephen isku dayay inuu ka tago guriga, Jeffrey oo ka baqaya kelinimada ayaa ku dhuftay bir culus, kadibna wuxuu u dilay si naxdin leh. Wuxuu jidhka Stephen u gogoy qaybo yaryar, lafahiisana wuxuu ku aasay beerta dambe ee guriga aabbihiis kadib markii uu ku shubay dareere kiimiko ah oo hilibka dhalaaliya. Dilkan wuxuu Jeffrey ku reebay dareen isugu jira cabsi iyo raaxo madow, wuxuuna muddo ku dhow 10 sano kadib ku dhex jiray nolol qarsoon isagoo dadka u muujinayay inuu yahay nin deggan oo shaqadiisa u socda, balse dhibaatadii gudaha kaga jirtay waxay ahayd mid markasta soo xoogaysanaysay. Sannadihii 80-maadkii dabayaaqadoodii, Jeffrey wuxuu u soo guuray magaalada Milwaukee, halkaas oo uu ka kiraystay aqal yar. Markii uu aqalkaas degay, dembiyadiisu waxay noqdeen kuwo xawli ku socda. Wuxuu bilaabay inuu habeenkii tago baararka iyo meelaha dadku ku badan yihiin, isagoo ugaadhsan jiray ragga dhalinyarada ah. Jeffrey wuxuu ahaa nin hadal macaan oo u muuqda mid aan dhib lahayn, taas oo u sahlaysay inay dadku raacaan. Markii uu aqalkiisa keeno, wuxuu cabitaanka ugu dari jiray kaniiniyo hurdada ka keena. Markii uu qofku miyirbeelo, Jeffrey wuxuu u fulin jiray qorshihiisa madow ee ahaa inuu qofkaas u beddelo mid isaga u adeega oo aan marnaba ka tagayn. Naxariis daradiisu waxay gaadhay heer uu dadka madaxa ka dalooliyo isagoo nool si uu maskaxdooda dareere ugu shubo, isagoo raba inay noqdaan sidii qof nool balse aan fekerin, taas oo keeni jirtay dhimasho degdeg ah oo naxdin leh. Aqalka Jeffrey Dahmer wuxuu u beddelmay meel urqadmuun ay ka soo baxayso oo deriskiisu ay bilaabeen inay ka cawdaan. Jeffrey wuxuu dadka u sheegi jiray in qaboojiyahiisu uu ka xumaaday iyo in hilib ku dhex qurmay, balse xaqiiqdu waxay ahayd in aqalkiisa ay yaaleen xubno bini'aadam oo aad u badan. Wuxuu dadka u dili jiray si naxariis darro ah, kadibna wuxuu bilaabay inuu hilibkooda cuno, isagoo rumaysnaa in haddii uu hilibkooda cuno ay qayb ka noqonayaan jidhkiisa oo aysan marnaba ka tagayn. Jeffrey wuxuu lahaa foosto weyn oo uu ku dhex ridi jiray jidhadhka dadka si uu u dhalaaliyo hilibka, isagoo haystay madaxyada dadkii uu dilay oo uu ku dhex qariyey armaajooyinka iyo qaboojiyaha. Qof kasta oo aqalkaas u soo gala marti ahaan dib uma soo baxayn, iyadoo magaalada Milwaukee ay noqotay meel dhalinyaro badan lagu waayo iyadoo aan raad la helin. Dhacdadii ugu naxdinta badnayd waxay dhacday bishii Maayo ee sannadkii 1991. Wiil yar oo 14 sano jir ah oo la odhan jiray Conerak Sinsasomphone ayaa ka soo baxsaday aqalka Jeffrey isagoo qaawan, dhiig badanna uu wejiga kaga yaalo, maskaxda ayaana laga dalooliyey. 2 haween ah oo jidka marayay ayaa arkay wiilka oo ku dhibaataysan waddada, waxayna u yeedheen booliiska. Jeffrey ayaa goobta yimid wuxuuna booliiska u sheegay in wiilku yahay saaxiibkiis weyn oo cabbaay, uuna isagu daryeelayo.
booliskii oo ahaa kuwo aad u taxadar yar ayaa rumaystay hadalka Jeffrey, waxayna wiilkii dib ugu celiyeen aqalkii uu ka soo cararay iyagoo xataa Jeffrey ka caawiyey inuu wiilka guriga geliyo. Muddo yar kadib markii boolisku ay tageen, Jeffrey wuxuu dilay wiilkii yaraa ee Conerak, isagoo tusaale u noqday sida dayacaadda boolisku ay u horseeday geeri kale oo laga baaqsan karay. Bishii Luulyo ee sannadkii 1991, sirtii Jeffrey Dahmer ayaa ugu dambayntii fashilantay. Wuxuu waddada ka soo kaxaystay nin la odhan jiray Tracy Edwards, isagoo u ballan qaaday lacag haddii uu sawirro la galo. Tracy markii uu guriga galay, wuxuu dareemay ur aad u daran iyo jawi cabsi leh. Jeffrey ayaa isku dayay inuu gacanta kaga xidho katiinad, balse Tracy oo ahaa nin xoog badan ayaa ku guulaystay inuu Jeffrey feer ku dhufto oo uu albaabka ka cararo, isagoo hal gacan ay katiinad ku xidhan tahay. Tracy wuxuu jidka ka helay baabuur boolis ah, wuxuuna u sheegay in aqalkaas uu ku jiro nin waalan oo doonaya inuu dilo. Booliskii ayaa markan go'aansaday inay gudaha u galaan aqalka Jeffrey si ay u ogaadaan waxa ka socda. Markii boolisku ay galeen aqalka Jeffrey, waxay la kulmeen muuqaal ka naxdin badan filimada cabsida ee ugu xun dunida. Mid ka mid ah askarta ayaa furay armaajo taallay qolka hurdada, wuxuuna dhexdeeda ka helay sawirro aad u badan oo dhiig leh oo dad la gowracay ah. Markii uu askarigii sii eegay qaboojiyaha, wuxuu ka helay madax bini'aadam oo go'an oo qabowga ku dhex jira. Jeffrey Dahmer ayaa isku dayay inuu la dagaalamo askarta balse waa la qabtay. Baadhidii aqalka ayaa socotay muddo dhowr maalmood ah, waxaana laga helay 7 madax oo qaboojiyaha ku jira, foosto ay ku jiraan jidad dhalaalay, iyo qalfoofka dad aad u badan oo uu Jeffrey doonayay inuu u isticmaalo sidii qurux. Dhammaan dadkii degganaa xaafadda ayaa ka naxay in dilaaga weyn ee magaalada laga raadinayay uu ahaa ninkii ay maalin walba jidka ku arki jireen. Maxkamadayntii Jeffrey Dahmer waxay ahayd mid si weyn loo daawanayay guud ahaan dunida. Waxaa la keenay ehelada 17 dhibbane ee uu Jeffrey qirtay inuu dilay. Muuqaalka Jeffrey ee maxkamadda wuxuu ahaa mid qof kasta ka yaabiyey. Wuxuu ahaa nin aad u deggan, xidhan muraayado, oo u muuqda mid aan xataa duqsi dili karin. Looma rumaysan karin in gacmahaas dhuuban ay geysteen dembiyadaas foosha xun. Jeffrey wuxuu qirtay inuu dembiyada galay, balse qareennadiisu waxay isku dayeen inay ku andacoodaan inuu yahay nin waalan oo aan garanayn waxa uu samaynayo. Si kastaba ha ahaatee, xeerbeegtida ayaa go'aamisay in Jeffrey uu ahaa nin garanaya waxa uu samaynayo, waxaana lagu xukumay 15 xabsi daayin ah oo isdaba joog ah, taas oo ka dhigan in uusan marnaba xabsiga ka soo bixi doonin. Intii uu xabsiga ku jiray, Jeffrey Dahmer wuxuu sheegay inuu dareemayo qoomamo, wuxuuna bilaabay inuu barto diinta. Balse dadka kale ee maxbuusta ahaa ma ayan u naxariisan. Sannadkii 1994, nin la odhan jiray Christopher Scarfer oo isna xabsi ku jiray ayaa Jeffrey ku weeraray musqusha xabsiga dhexdiisa. Christopher wuxuu Jeffrey ku dhuftay bir culus oo uu ka soo bixiyey qalabka jimicsiga, isagoo sheegay inuu u dilay dembiyadii foosha xumaa ee uu Jeffrey u geystay dadka dhalinyarada ah. Jeffrey Dahmer ayaa isla goobtii ku dhintay, isagoo nolosha kaga tagay hab la mid ah kii uu isagu dadka u dili jiray. Geeridiisu waxay ahayd mid dad badan ay u arkeen inay tahay cadaalad ka timid gacanta bini'aadanka, maadaama dembiyadiisu ay ahaayeen kuwo maskaxda bini'aadanku aysan xamili karin. Sheekada Jeffrey Dahmer waxay dunida kaga tagtay su'aalo badan oo ku saabsan sida qof bini'aadam ah uu u gaadhi karo heer uu dadka kale hilibkooda cuno oo uu ula dhaqmo sidii caruusado. Waxay sidoo kale kashiftay dayacaadda booliska iyo sida dadka laga tirada badan yahay loogu takooray baadhitaanka dembiyada. Aqalkii naxdinta lahaa ee Milwaukee waa la dumiyey gebi ahaanba si loo tirtiro raadkii sharka ahaa ee halkaas yaalay. In kasta oo Jeffrey uu dhintay, haddana magaciisu wuxuu weli ku jiraa diiwaanka dembiyada inuu ahaa mid ka mid ah dilaayaashii ugu xumaa ee abid soo mara dalka Maraykanka, isagoo tusaale u noqday cabsida qarsoon ee ku dhex jiri karta dadka inala nool ee u muuqda kuwa ugu xishoodka badan.